بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aniga oo ah gudoomiyaha guddiga caleemasaarka ugaas cabdulxayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye, waxaan rabaa dhammaan ehelka daafaha adduunka kala jooga in aan u sheego kadib doorashadii dhacday ee ugaaska waxaa la sameeyey guddi ka kooban 19 xubnood oo diyaarinaya qaabkii caleemasaarka ugaaska. guddigaas oo gudoomiye iyo ku-xigeen iyo xogaye guud leh oo laba guddi la sameeyey, oo labada guddina yahay guddiga dhaqaalaha, guddina yahay guddigaas oo noqon doona guddiga soo diyaariya qaabkii Ibraahim Cumar uu wada noolaan lahaa mustaqbalka fog, shuruuc soo diyaarinaya, soona diyaarinaya 9 nabadoon oo Ibraahim Cumar oo jifooyinku ay kala yeelan doonaan. taasna marka waxay meesha soo saaraysaa in Ibraahim Cumar uu samaystay golo dhaqan uu hogaaminayo ugaasku. magaca ugaaskana tala guud bay ku qaateen Ibraahim Cumar. 9 nabadoon iyo ugaaska qorshahaas raggii soo diyaarin lahaa weeye guddigaasu. labadaa guddi oo midna kaas yahay ka kalena uu soo jaangoynayo dhaqaalihii ku bixi lahaa, meelihii dhaqaalahaas uu ka kala iman lahaa. kaas horta waa qodob oo waa la sameeyey doorashadii ka bacdi. Ibraahim Cumar hawshaan 80yadii intii ka dambeysay way ku guuxayeen, way ku taamayeen. muddo laga joogo 4 sannadood baa waxa soo shacbaxay Ibraahim Cumar in ay samaystaan deegaan iyo duub. deegaankii waa la sameeyey, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. duubkiina waa la sameeyey. Ibraahim Cumar marka taas waxay u tahay riyadii oo u rumowday, waana guul Ibraahim Cumar u soo dhalatay weeyaan. ilaahay mahadiisa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. taas markaan dhinaca iska dhigo, tan kale ilaa iyo nebi aadan, ilmo nebi aadan baa isdilay. asxaabtii dagaalkii Uxud iyo Badar wada galay baa isdilay. ummaddu inay iskhilaafto oo dad uuni maaragtay intuu doonaba ha la ekaada ay wax khilaafaan waa wax caadiya weeye. 4 nin oo telefishin ka hadashay Ibraahim Cumar masayrkiisa ma leexin karayaan. 500 oo qof ugaaska markii la soo dhaweynayay culmadow lagaga hortagay. 500 oo qof iyo 50 baabuur inay ahaayeen waa arkayseen. gaalkacyo markii lagu marti qaaday Ibraahim Cumar, nabadoonkii beledweyne Ibraahim Garyar ilaahay u naxariistay wiilkiisii oo nabadoona ka soo qayb galay. Ibraahim Cumarkii Qalaafo, Higlooley iyo Jigjiga joogay iyo kuwii Doollo baa ka soo qayb galay. Ibraahim Cumar Yurub iyo Latin America iyo Australia ka yimaadeen, dal iyo dibadba. waxaa laga yimid Switzerland baa laga yimid. rag waaweyn oo professor ahoo dad cilmi lahoo muftiyaalahoo Ibraahim Cumar baa isugu yimid. odayaal baadiye laga keenay, reer baadiya iyo reer magaalba waa la isugu yimid. talada waa la tashaday, waa laga fara buuxsaday. marka inta ka dhimanna oo ama ha yaraadeenbe 4 iyo 5 waxay doonaanba ha ahaadaane, gogashu waa la fidiyey ilaa hal qof oo Ibraahim Cumar oo mucaarada la waayo. gogashu way fidsanaan doontaa, weligeed bay fidsanaan doontaa. haddii ilaahay idmana waxaa la rabaa midnimada Ibraahim Cumar waa muqaddis. qof hor istaagi kara iyo 2 iyo 3 iyo 4na isma hortaagi karayaan. taas markii aan ka gudbo, waxaan baaq u dirayaa dadka Ibraahim Cumarka ah oo meel kasta jooga inay maaragtay arrintaas nagala qayb qaataan.
oo ugaaska qaabkii loo caleemo saari lahaa oo maaragtay baanu qorsheynaynaa haddii ilaahay idmo inay hawshaas u wada guntadaan baa laga rabaa. midda kale guddiganu wuxuu ka shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo caleemasaarka kasakow sidii maaragtay dadka Ibraahim Cumarka la isugu soo wada jiidi lahaa, laba waliba isu wada dhunkan lahayd, taas baa laga wada shaqeynayaa haddii alla idmo. waxaan leeyahay oo markaan dib u yara noqdo Ibraahim Cumar adduunka intuu ku noolaa qof la doortay oo Ibraahim Cumar ah oo Ibraahim Cumar dadkiisa shacabka ay doorteen ugaaska ugu horeeya Cabdulxayi Sheekh Ismaaciil baa ugu horeeya. cid ka horeysay Ibraahim Cumar oo la doortay weligeed iyo allaheed ma jirto. aniga hal hadalaan rabaa inaan idiin sheego Ibraahim Cumarow adeer Cabdulqaadir adeerkay weeye, waa 90 jir. gaalkacyo waxaan kula kulmay 10 jeer muddo aan ka yarayn. waxaan ku yiri adeerow oday weyn baa tahay, adeerka yaa tahay, waan ku ixtiraamaynaa. in lagu doorto hadeer aan diyaarino, anaa diyaarinaya, waa la doortay ha oran. arrintii ugu horeysay isku qabanay taas ay ahayd. mana jecli inaan hadda aad ugu dheeraado. Ibraahim Cumar waxa uu talin jiray odaygu ka weyn yahay, sida baarlamaanka Soomaaliya oo kale markay meel isugu yimaadaan Ibraahim Cumar waxa la oran jiray yaa ugu weyn inoo furshirka la oran jiray. dadka waaweyn iyo dadka khiyaarta ay odayaasha u talin jiray. adduunka hadda waa la dhaafay waxaas. Soomaaliya way burburtay, dawladnimo ma jirto shaqaysa, golo dhaqan baa shaqeeya. muddo fara badan baynu waxaynu ku nooleyn yacni kala tag iyo maaragtay dadkii hor isba aqoonin. hadda meeshaad joogtidna dhaqankeeda inaad yeelato waa lagama maarmaan weeye. waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Ibraahim Cumar meel kasta oo ay joogaan shanta qaaradood waxaan u dirayaa hambalyo iyo walaaltinimo iyo in la isu soo hiloobo iyo in la iscafiyo, in maaragtay garbaha la isqabsado, in masayrka Ibraahim Cumar la ilaaliyo. laga bilaabo caawo waxa la sameeyo golaha dhaqanka oo ugaaska iyo 9 nabadoona. waa bandiiradii Ibraahim Cumar weeye. halkaas markii la fiiriyo ummaduna haddayna iyadu is ixtiraamin dhib baa ku dhacaya. waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa meel kasta oo joogtaan ilaahay ha idin xifdiyo, ilaahay muwaafaqo iyo midnimo iyo walaaltinimo Allah idin siiyo. ciddii naga leexsan oo ummaddu ila waa ummad bila aadan weeyaanoo way kala leexsanaanaysaa. ilaahay inuu inagu soo leexiyo, inagu soo dubarido. baaqayga ugu dambeeya wuxuu yahay ciddii Ibraahim Cumar ee arrintaas madmadow kaga jiro gogol baa u fidsan, gogoshu way fidsanaan doontaa haddii ilaahay idmo. intaas baan ku soo gabagabeynaya hadalkayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.